waxaa goobta ka baxsada taliyayaal badan waxaana iyagoo la cararaya nafahooda dusha ka mariyaan gaadiidka dagaal ee ay wataan dhaawaca iyo meydka askartooda sida uu inooga sheekaynayo wiilkan oo walaalkii uu jiidhay gaadhigii uu la cararayay taliyihii dagaalgelinayay ee Faysal Cabdi Bootaan. gaadhi taliyuhu leeyahay howlgelinta ah ama meyd hamoodo waxa kan waa meyd ama xitay aragti la'aan ama markaa dee goob dagaalan la sarkin hamoodo gaadhigaas maray labada dib u ka maray adinka waxa jibiyay gaadhiga daawadaha qiimiga badan oo fadlan daawade page-ka Facebook ee Dulmar Media follow garayso sidoo kale like saaro siina share garayso aan u helno saaxiib wanaagsan sida adigoo kale mahadsanid. waxay tahay sababta uu Muuse Biixi maalin walba ciidan ugu soo daabulayo gobolka Sool haddana uu dib ugu rarayo meydkooda dadkii masaakiinta ahaa ee islaha ciyaalkiina $100 ha idiin soo shaqeeyeen iyo xoogaa raashin ah ee la siiyo ciilqabayaasha ku xaraysan xerooyinka bahalgaleenka ah ee Goojacade. dagaaladii dhacay marka laga soo bilaabo bishii labaad 6deedii ee sanadkan aan ku jirno waxaa lagaga cararay meydad carruur badan oo laga soo raray magaalooyinka Burco, Hargeysa iyo Berbera. carruurahaas ayaa weli qaar ka mid ah aanay ogeyn waalidkood iyagoo loo sheegay in ay ku jiraan jiidda hore ee dagaalka. waxaa halkan idinka muuqda gaadiidka caafimaadka oo daadguraynaya carruur isugu jirta meydad iyo dhaawac halkaas oo badankoodu jidka ku nafbaxeen waxaana lagu soo rasteeyaa baabuurta xamuulka qaada marka loo waayo gaadiid caafimaad oo ka soo daabula jiidda hore. dariiqanna waxay ula baxeen dariiqa geerida maadaama oo maalin walba oo dagaal dhaco la qaadsiiyo boqolaal meydad iyo dhaawac ah. dad badan ayaa isweydiinaya ciidankan maxaa loogu soo daabulaa laascaanood taas jawaabteeduna waa in ciyaalkii hore aakhiraysteen waxna noqdeen dhulyaal dhaawac ah oo ku dayacan isbitaallada Hargeysa iyo Burco. mar kasta oo dagaal dhaco waxaa goobta ka baxsada taliyayaal badan waxaana iyagoo la cararaya nafahooda dusha ka mariyaan gaadiidka dagaal ee ay wataan dhaawaca iyo meydka askartooda sida uu inooga sheekaynayo wiilkan oo walaalkii uu jiidhay gaadhigii uu la cararayay taliyihii dagaalgelinayay ee Faysal Cabdi Bootaan. Shiir Cabdullaahi Cali ninkan isku dhalashay xigaan gaadhi tiknika buu waday waxaa goob dagaal buu ku jiray 25 kadib ay ku dhacday rasaastu waxa ay kaga soo dhacday isagoo steerinka haya ridihiina ridayo waxay kaga soo dhacday daaqadiisa waxaana kala baxday ta kale dhulkay u turtay markay u turtay xabadu waxay ku dhacday bowdada midig oo ilaa ruuga ilaa sarcanta ah gacanta bidix oo ah ilaa iyo dhudhunka dheer oo dhan dhulka markay u turtayna gaadhi taliyuhu leeyahay howlgelinta ah ama meyd hamoodo waxa kan waa meyd ama xitay aragti la'aan ama markaa dee goob dagaalan la sarkin hamoodo gaadhigaas maray labada dib u ka maray adinka waxa jibiyay gaadhiga adinkana xabadu waxay joogtaa halka bowdada ruuga yar sareysa halka ruuga iyo halkan waxaa idinka muuqda maalinkii uu taliyaha dhakada ka mariyay gaadhigiisa kadib markuu haleeli waayay in uu hubiyo dhaawacooda iyo dhimashadooda wuxuuna halkaas kaga cararay ciidan badan oo isugu jira dhaawac iyo dhimasho kuwaas oo dhurwaagu lafahooda ku feenanayay goobihii dagaalku ka dhacay toddobaadyo badan. waxaa kaloo halkan naftooda ku soo biimeeyey taliyayaal tiro badan oo ku haligmay duleedka laascaanood halka qaar kale oo badanna iyagoo naftu ku dabayar tahay baxnaano loogula cararay meelo aad uga durugsan goobaha dagaalka. xabaalaha oog ayaa buux dhaafay sidii loogu aasayay daalimiin jidka ku nafbaxday oo dhaawac darxumo dhiigbax iyo dawala'aan ku haleeshay godadka ku yaala duleedka laascaanood. waalidiin badan oo lagu soo wacyigeliyey inay wax qaran la yidhaahdo la difaacayo ayaa carruurtooda u soo diray laascaanood haddana ka taagan murugo
iyo seexan waa kadib markii ay arkeen meydad badan oo la garowsan waayey kuwaas oo dugaagu ku feentay jabka qoriga dhiyuxunsho goojacade dhabansaar dhuxun xargaga iyo ayaha cidla cirsilada ah ee ku dhowdhow laascaanood dadka SSC waxay diyaar u yihiin inay naftooda maalkooda iyo sharafkooda ka difaacaan oo iska qabtaan qabiilka horarka ku ah dhulkooda iyo dhiigooda waxay soo dhaweynayaan in xabaalwadareedada muuse hadda ka qodayo magaalooyinka Og iyo Caynaba si loogu aaso ciidanka hadda nool ee Hargeysa jooga marka ay laascaanood ku leedaan laascaanood waxay noqotay goobta keliya ee ay si fiican ugu baxday mahmaahda ah xabaashu ma socotee qofkeeda socda halkaas oo meydad badan uga soo safraan Hargeysa iyo Burco maalin walba